laga soo bilaabo 19 qarnigii tagay xilligaasoo dalka Soomaaliya ay xukuumad la'aan ku dhacday ilaa iyo maanta waxa wadanka Yemen si maalinle ah ugu soo shubma qaxooti Soomaaliyeed oo ka soo cararaya colaadaha iyo abaaraha dalkoodii ka ogan. dawladda Yemen oo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay sheegtay in qaxootiga dalkeedii soo galay tan iyo xilligaasi ay sare u sii dhaafeen 1 milyan oo ruux. inta badan qaxootigaasi kumaanay nagaan wadanka Yemen oo horay ay uga sii baqooleen hase yeeshee kuwii ku haray intooda badan waxa hoy looga dhigay xerada Al-Kharaz oo iyadu 180 kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada Cadan ee koonfurta dalka Yemen. idaacadda VOA ayay u suurta gashay in ay soo booqato xeradaasi si ay u soo taabato xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee 15,000 sare u sii dhaafaya ee halkaasi ku jira. dhulka ay xeradu ku taalo waa lama degaan waxaanay bartamaha kaga jirtaa buuro ku soo celinaya kulaylka iyo qabowga. wadada xerada gashaana waa mid aad u burbursan oo baabuurtu ay adag tahay in ay saani ugu socdaan. waxaana haatan halkan ka jira qabow qallalan barka hore ee sanad walbaana waxaa ka dhaca kulayl aad u daran oo ay dadka qaar ku waxyeeloobaan. meel waa aan ku noolaan karin haweenka uurka leh, caruurta, dadka da'da ah oo aad waayo xerooyinkan soo marnay sida Madiina Shacab, Alkuud, Jaxiin, xawaalaha maanta ka qodan saddexdaas xero waxaa ka badan ku 4 jibaar ma xeradan xawaalaha ka qodan. waa dadka sokor iyo dhiikar iyo aboorash oo naagaha ilmaha soo dhicinayo naagaha sokor iyo dhiikar inuu yaro sokor iyo dhiikar qaba darkeen marka aad iyo aad meesha lada meel laba degaan marka waxaan ka codsanayaa maadaama aad telefishinka daacadda VOA fadlan naga gaarsii meel kasta joogteen in gargaar degdeg ah oo xal waara ah inay uga soo gaaraan wadamada deeqad bixi iyo kuwa dadka qaabilaba. hoyga dadka qaxootiga kuwa Al-Kharaz waa teendooyin aan kulaylka iyo qabowga midna celin karin. qoyskii uu nasiibku saacidana waxa uu helaa qol dhagax ka samaysan oo bedkiisu uu yahay wax 3 mitir ka yar. waxaanay qaxootigu lagdan aan dhammaan kula jiraan sidii ay quutulyoomkooda ku dabari lahaayeen maadaama raashinka ay hay-aduhu bishiiba siiyaan aanu ku filnayn wax 2 toddobaad ka badan. waxaanay dadka xeradu arrintaasi u aaneeyaan hay-adaha gudaha ee ay UNHCR adeega qaxootiga u marsiiso. UNHCR waxay leedahay local staff bay leedahay. aniga hadda oo tusaale kaaga dhigaya warqadaas oo kale hadda tusaale kaaga dhigaya waxaan ka soo qaaday like 3 sida geedka oo kale. geedka markuu baxaayo rootka hoose wuxuu ka soo qaataa macdanta dhulka dhexda geedka wuxuu mariyaa macdanta. refugee waa caleenta sare oo ka aan kuugu dhigay. marka haddii qaxootiga halkaas uu yahay UNHCR waxay soo lufluftay ka soo qaada wadamada ay ka keento. haddii NGO ya local staff ay u adeegsatay tiri hawsha ha ku fududeeyaan local staffki hadduusan si fiican wax u qaban qaxootiga wax u gudbaya malaha. waxaa Al-Kharaz ku yaala iskuul weyn oo ay dhigtaan ku dhawaad 5,000 oo arday Soomaaliyeed ah. waxaanay waxbarashadu tahay mid aan inta badan waxba ku soo kordhinaynin caruurta yaryar ee dugsiga hoose ku jirta maadaama ay luuqadu ku adag tahay amaba aanay garanaynin. ardaygii uu nasiibku garab galana waxa uu ku biiraa 30 arday oo sanad walba ka baxda dugsiga sare ee xerada. aqoontooduna ay halkaasi ku istaagto maadaama aanay helin cid ka taageerta waxbarashada jaamacadda. waxbarashada caruurta aad bay u liitaan 100% markii la dhaweeyay liitaan. waxaan u liitaan waxaa macallin ah nin Yemani nin Soomaali cunug yar Soomaali ku hadlayo nin macallin ku hadlaya af Carabi oo dhahayo macnaa u sharaxayo Carabi ugu sharaxayo horta ma yaqaan cunuga horta af Carabi ku hadli karaa darsiga markii la siiyo. awalan darsiga markii la siiyo cunuga oo la dhaho macnaa af Carabi lagu siiyo mis fahmi karaa horta macallinkii arday horta mis fahmi karaan taasaa ka horeyso. cunuga markaas wax qaadan kara xarafka u sheegtid ama darsiga u sheegtid cunuga markuu fahmo kelmadaada markuu fahmo cunuga darsiga qaadan kara. inkastoo dadka Al-Kharaz ku jira ay u badan yihiin kuwa muddada 20 sano ku dhow halkaasi ku dacdaraysnaa haddana waxaa jira tiro aan la dhayalsan karin oo sanadihii ugu dambeeyay ku biiray qaxootiga xerada hore u sii joogay. waxaana lama filaan ku noqday dhibaatada ay dadkaasi ku nool yihiin iyagoo danayn la'aanta jirta mas'uuliyadeeda dusha kaga riday hay-adda UNHCR ee arrimaha qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan. waxaan soo gatay booska aan lahaa meel aan ku noqdo ma laha. halkaan aan soo degay si aan nafteeda ku badbaadiyo caruurteeda. halkaan markaan soo degay waxaan la kulmay dad iga soo horeeyay oo muddo 20 sano joogay. nolosha ay ku nool yihiin waa nolol aad mataqaanaa u liidato waay markii aan fiiriyay aniga.
dhinac kastana aad ay ugu liidato dad waxaa moodaa madax laga garaacay oo aan la socon mataqaanaa qaxootiga adduunka markaan arkay sida yihiin aniga waa la qabsaday sida adiga yihiin aan iska nahay laakiin wax ka jira ma laha eedda badanna waxaa iskale UN-ka sababta waxaa waaye daryeelka adduunka laga sameeyo oo qaxootiga lagu sameeyo halkaan xeradan marna ma laga soo biyo mashaakilku waxa uu ahaa mid soo jiitamayay inta ay qaxootigu ku sugnaayeen dalka Yemen iyadoo dadkii 20 sano halkan joogay ay u ekaadeen kuwa la qabsaday dhibkaasi oo aan waxba u arag hase yeeshee daryeel la'aanta iyo dhibaatada ugu weyn waxa ay qaxootigaasi ka haysataa dhinaca caafimaadka mana jiro wax kaniini yar oo dadka gacanta looga rida dhaafsiisan oo ay laajiintu ka helaan isbitaalka xeradooda ku yaala xerada waxaan deganahay 20 sano waa intaan halkan joogo oo xerada aan deganahay 20 sano waa 20 sano markaan soo galay aniga waxaan soo galay dhalinyaro ayaan soo galay iskaabul haddana maanta waxaan ahay nin familia ayaan ahay sababtoo ay gabadha halkan ku dhalay ayaa guur waxaan jeclaan lahay dhinaca isbitaalka hadda waadaan macnaan aragtaan ama muuqaalkeeda aragtaan waa aad iyo aad ayuu xun yahay nolol kuma haasano isbitaalka caafimaadka xaqiisa waa aad iyo aad ayaan ugu xun tahay waxaan indhaha soo saarnay xaalada caafimaad darro oo aan waxba looga qaban karin gudaha Al-Kharaz haddana u muuqda kuwa ay hay'aduhu dhinac iska dhigeen waxaana ugu sii liitay wiilkan dhalinyarada ah oo isagu muddo 2 sano la lagdamaya xanuun loo sheegay in aan gudaha Yemen waxba looga qaban karin waxa uu ka sheeganayaa xanuun xaniinyaha ka haleelay iyadoo biyaha uu cabo ay si toos ah ugu shubmaan waxaana xiniinyihiisu barar aawadiis gaareen ilaa 2 kiilo mana jirto cid isku howlaysa sidii loo daryeeli lahaa ee keligii ayaa dhex jiifa teendhada uu ka degan yahay Al-Kharaz maya horta intii aniga la geeyay isbitaal waxba lagama qaban karo ay guuraan marka wala soo celiyo waraaqahoodina wada haya sanca sawirun bay ka qaadana sawirkaagan diraana hadii ay yiraahdaan ka soo jawaabana waxba ka soo qabanaa waan ku soo annagu soo doonno bay guuraan markii dambe waxa uu raacay waxba waa laga qaban karo waaye waraaqaagina UN-tan u gudbinay UN-tu meelaha ku geeso UN-tana jawaab kama ma jirto wax shaqo ah oo ay raggu qabtaan waxaanay sheeko iyo waxa ay Soomaalidu fadhi ku dir u taqaano casarkii u soo fariistaan goob ay ku kulmaan oo xerada dhexdeeda ku taala waxaana sida muuqata waxoogaa yar dhinacaasi ay fursadu taageertaa haweenka oo iyagu maqaayado halkaasi ka furtay kana shaqaystaan waxaa ka mid ah qaxootiga ku xareysan Al-Kharaz dad magac ku dhex lahaa bulshada Soomaaliyeed hase yeeshee ay duruuftu ku kaliftay in ay dal shisheeye qaxooti ku noqdaan waxaana halkaasi kula kulmay fanaanka Shariif Cabdalla oo ay Soomaalidu heesihiisa aadka u taqaano dhibkana waxa uu la wadaagaa jaalkiisa ay xerada ku wada jiraan guudkaagan dhilan garbahaagan dhaafay sida seenta geenyada marba gees u tuurta gelindhaha habeenkii riyowgu guryamay dhandharan odagii alifay ninkii alifay baan ahay hadda odanimada iyo waxaas hadday ugu soo noqotay waxaa jira hees talyaani oo sameeyey oo ayadana ay leedahay abrosmositima io vado in Somalia viverò con l'amici mio e non ritorna più adduunka lagama helo dhulkeena nimcadu leeyahay wadadii cusub oo la bixiyo oo laami la saaraa dhinaceeda doog halkan ilaa cadan ilaa meeshaad soo gaarto waxaan u malaynayaa wax caws ah indhahaga maadan saarin marka dhibtaas waxaa nagu kalifay mooryaanta iyo qabiilka waxa hadda soo baxay arrimaha ugu yaabka badan leh aan ku soo arkay xerada Al-Kharaz intii aan ku sugnaa ayaa waxa kamid ah in halkaasi kula kulmay gabar Soomaaliyeed oo iyadu ku dhalatay xerada Al-Kharaz halkaasina ku guursatay oo haatan caruur haysata mana jiro wax horumar oo dadkaasi ku soo kordhay tan iyo markii xeradaasi la aasaasay horaantii 90-maadkii Jaafar Kukaay VOA Yemen